Lena Atosho Somaliana Khana Lena Gabdehena Maniki Atosho Gabdehena Mawariga Warkuwa Turki Kunekina Abba Khalidi Ishta Wallahi Bilay Kala Somal Khana Lena wa Lahde Gabdaha Turki Kunekina oo wax ishtalehinin oo ilaahay aqaalin oo walaalkood ceebeeyay Soomaalinimada ceebeeyay magaca Soomaaliya hal cish hada wax cishanaysa dhaqaleedii kuwaas cishta oo waliba nin cadiin ah oo ajnabi ah oo wuxuu yahay aqan gaal ee muslim kunay kina kaas ka cishta gabdhiin nin walaashis cishala ah wuxuu ku mashquulaa dadka walaasha meela kunay kinayso oo nin ajnabi ah kunay kinayso marka saacad shirku mashquul waxas kuma fiicin iska jooji taada asxaawe waxa saakalkada u fadhiya waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga joogo inaan la hadlo gawaray hooyada iyo aabaha waxa ay ku soo direen inaad wax barato ayaa Turkiga lagu diray ma lagu dirin in aad nin ajnabi ka ah aad xabad jalaata darteed aad ugu neeykiso waxa ku leeyahay waxa aad ka wadaan baraha bulshada ee ninkaasi aad ku neekinaysa Ilaahay raali kama ahan ajnabi ayaa kala tihiin marka lamaana ay baraha bulshada soo gala dadka Soomaaliyeed way ka hadlaa way aflagaatay way dhibaateeyaan laakiin dad aan isqabin kabar oo isku neekinay subhanallah dad aan isqabin ayaa isku neekinay raali ayaa ka tihiin hal ma aha laba ma aan saddex ma aha maalin walba waxaan arkaynaa dad wiilal iyo gabdho aan isqabin oo isku neekinay oo aad ka hadleedin aad raali ka tihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa siraale kama aha gabdhaha Soomaaliya ee wadanka Turkiga joogo dhaqaxumada ay soo bandhigayaan indhaha Allah ma aqbali karaan indhaheena ma aqbali karaan aqligeena iyo garaadkeena ma galaya waxaan idin leeyahay gabdho hooyada iyo aabaha iyo ehelkaada iyo walaalaha waxa ay ku direen in aad wax u soo barato laguma dirin inaad meelaha ku fataasho aad jirkaada ka gaddo dadweynaha caalamka laguma dirin inaad adiga jirkaada aad ka iibiso dadweynaha caalamka waayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa siraali kama ahan gabadha kuma neeki karto ma sama taaban karto nin ajnabi ka ah hadii aad muslim tahay oo aad diinta islaamka taqaano oo aad qof akhli leh tahay diinteena ma banaynayso walaalayaal waxaan idin leeyahay waxyaabahaas daalimnimada faasiqnimada aad wadaan joojiya Ilaahay ka cabsada marka Atooshada qof uu tabiyo ama ahaan xaaskiisu la soo istaago wada indhaha ku wada taagaysa marka dad ajnabi kala ah ay isku neekinayaan waa ku quslaysan oo waxa leeyihiin fari ayaa tihiin leeyihiin wariyaa adiga Atooshada ku mashquulay waxaan ku leeyahay ku mashquul dadka ajnabi kala ah ay isku neekinayaan oo sharci darada isku neekinayaan waliba wax ay u neekinaysa xitaa wax micno leh xabad jalaato haday u badato $2 joog anaa ku gada soo xabad jalaato $2 joog inaan nin ugu neekiso oo aad jirkaada adduunweynaha aad ka iibiso oo aad u soo bandhigto kub inaan leedahay oo aad u soo bandhigto dhax inaan leedahay oo aad u soo bandhigto inaan neekin karto waxaas waa khalad waa dambi weyn oo aad Ilaahay ka galayso nafsadaadana aad ka gashay walaalay waxaan ku leeyahay jooji asamayn waxaas waa dambi waxaan ku leeyahay Ilaahay ka baq jirkaaga raga faca ama jirkaaga wiilasha walaalka facoosta ha tusi oo ha ku hormeekin gabadha u dambaysa ayaa la hadlaya walaalay waxa ka qof Ilaahay jir uu ku deeqay waxa jir rag badan oo iskaabula jirkaas waxa laga yaabaa inay sa arki jirin laakiin inaad tustay waliba adiga oo dhadhab ah wadato oo neekinaysa fadeexa culus waa waxaas walaalka ficiis lama sheekaysan karo aabba ficiis lama hadli karo waxaad ceelaysa ehelkiina
waxaad ceebaysa sharafta walaalka, waxaad dhulka la gashay sharafta ehelkiina, waxaad dhulka la gashay sharafta hooyada, waxaad dhulka la gashay sharaftaadii. waxaan ku leeyahay waxaas ka joog, waa dhiiqo, ha geli mar dambe ha samayni. dadaa ku jiro oo ku ceeboobi. hadda haddii aad khaldantay, ilaahay toobad dambi dhaaf weydiisto u toobakeen. ilaahay u toobadkeen oo dambi dhaaf weydiiso si uu ilaahay kuu cafiyo. waxaan ku leeyahay walaalay, khalad wuu dhacaa, laakiin ninkaasi wuxuu sheegay gabdhaha Soomaalida ah deeshooda inuu aad uga helo. kuwa inta badan neekiyana ay yihiin gabdha Soomaaliyeed. aaway dhaqanaa leenahay, Soomaaliyana dhaqanaa leenahay, catoosho Soomaaliyana dhaqanaa leenahay. gabdhaheena ma neekiya catoosho, gabdhaheena ma wareega. war kuwa Turkiga ku neekina haddaa dhaqan leedii cishta, wallaahi bilaahi tala. Soomaali dhaqanaa leedahay waa dhahdeen. gabdhaha Turkiga ku neekina oo wax cishta laheenin, oo ilaahay aqaanin, oo walaalkood ceebeeyey Soomaalinimada.